kulankani oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda horumarinta maalgashiga Somaliland ayaa waxa ka soo qayb galay qaar kamid ah ganacsatada Somaliland. ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay Axmed Abukar Maxamed Haldoor, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga caalamiga ee Somaliland, oo isagu ku dheeraaday ujeedada kulankani iyo waliba muhiimadda uu leeyahay. ujeedada shirka loo qabtay sida maxaa sababay sheegay ama sida fariinta marka hore idinku soo dirnay waxa weeyaan ugu horeyn waa isxog wareysano wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo shirkadaha maalgashiga waddanka ka sameeyay ama ahaadaan qaar muwaadiniin maxalli ah ama qaar shisheeye ah noqdaan labadaba markaa in la isxog wareysto waxa qabataan waxaan ugu hormaynaa seen soo kaashanna waxa markaa laga wada duulay qodobka labaad fahantaan wasaaradda maalgashiga maxay tahay maxaa looga soo saaray markii hore wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga isku jireen maxaa gaar loogu soo saaray muxuu madaxweynuhu u xil saaray maxay qaranka markaa u haysaa idina si fiican u fahantaan ta kale wixii caqabadaha ka hor yimaadaan waddanka maalgashanaysa caqabadaha ka hor yimaadaan markaa noo sheegtaan sidii aan qaran ahaan iyo salaam bay la xalino iyo ugu dambeyntii xeerarka maalgashiga ee waddankeenu leeyahay iyo xeerar kale la xiriira sida xeerka kambaniyada ama shirkadaha in la dika sameeyo markaa faahfaahin yar oo kooban si markaa isaga aad fahantaan marka kule ujeedada shirkeenu waa sidaas. Somaliland xukuumadihii kala dambeeyay ay ugu dambeysay xukuumadda maanta jirta oo cusub waxay awoodda saaraysaa in waddankan markaa maalgashi loo helo markaa maalgashiguna waa mid gudaha oo muwaadiniintu maalgashanayaan, midna waa mid shisheeye ah oo labadaba markaa gacmo furan oo ku soo dhaweynaya qaranku. faa'iidadu inoo leeyahay maxay tahay haddii ujeedadu tahay waxa weeyaan waddan kastoo horumara caalamka maanta la joogo wuxuu ku horumaray markaa maalgelin buu ku horumaray marka maalgelin la sameeyo oo dhaqaalihii waddanka la geliyo shaqo abuur baa samaysmo. marka shaqo abuurku samaysmo waxa kor u kacay markaa dhaqaalihii qofku hayay iyo dhaqaalihii qaranku hayay labadaba kor bay u kacay. Axmed Abukar Maxamed Haldoor waxa uu sidoo kale uu farta ku fiiqay in wixii caqabadaha jira ay ka wasaarad ahaan ay si weyn uga hawlgali doonaan isla mar ahaantaana ay geeddeer iyo mid gaabanba u korayaan sidii ay maalgashiga Somaliland ay kor ugu qaadi lahaayeen. wixii markaa anaga mas'uuliyadeeda ah ka wasaarad ahaan oo xalinayna wixii wasaaradaha kale dawladda ku xiran anaga mas'uuliyadda qaadanayna inaanu la kulanno kala xaajoono. ujeedaduna waxay tahay markaa in la fududeeyo maalgashi caqabad in aan la kulmin markaa dadka maalgashatada inay sharciga raacaan, sharciga ku dhaqmaan, loona fududeeyo markaa anaga nala soo xidhiidhaan oo haddii wasaaradda ku xidhnaataan aad ruqsadda qaataan, canshuurta iska bixisaan, nidaamka waddanka u degsan iyo priority-giisa iyo waxyaalaha xooga dawladdu muhiimadda saarayso adiguna maalgelisaan baa idin fududeyn karaynaa. Maxamed Cabdi Qalinle, telefishinka caalamiga Bulsho.